السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتي وعنا وناكسن داوديل كسو دوادا برنامجكeenii dhacdada maanta waxaanu ku eegi doonaa wareysan ula yeelanay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax oo ka hadlay wada hadallada Soomaaliland iyo Khaatumo u furmay. gudoomiye Baasha waxa uu dhinaca kalena aan wax ka weydiinay saami qaybsiga iyo waliba qorshayaasha Soomaaliland ee madaxweynaha Soomaaliland la sheegay inuu doonayo inuu arintaasi uu xal u sameeyo. gudoomiye Baasha oo arrimahaasi arrimo kale wax kaga weydiin doona ayaan barnaamijkan dhameystiray ku soo gudbin doonaa daawasho wanaagsan. wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax oo mahadsantahay waqtigaadna siisay Soomaaliland waxay wada hadal la furtay Khaatumo Ali Khaliif iyo waliba siyaasiyiinta kale inta muddada badan tabashada ku maqnaa arintaas barsaad waa aragtaa maadaama aad ka soo jeedo deegaanka. bismillahir rahmaanir rahiim wada hadalka hadda ma bilaabmin waxay socdeen muddo badan intii dawladda kulmiye qabsatay madaxweyne Axmed Maxamed Siyaad uu socday marba meel hamare haddana wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay waxa weeye Khaatumo maaha Ali Khaliif waxa weeye waa institution dhisan oo wax walba leh oo wasiirro oo kale samaystay oo waa dad fara badan oo ka soo jeeda marka wax Ali Khaliif qura maaha waxa weeye waa institution dhisan oo Khaatumo la baxay marka aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa wada hadallada dawladdu xukuumaddu la furtay waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa Axmed Maxamed Siyaad ilaa maalintuu kursiga fadhiistay inta uu waday maalin ba stage ka hadda waxay marsaa meeshii ugu dambeysay in badan baan lahayn Khaatumo waa siyaasiyiin iyo niman salaadiin in la hadlo oo wada hadal la furo oo Soomaaliland isku midii ay doorashada wada gasho aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shacabka Soomaaliland waxaan uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen wada hadallada oo qof kasta oo ama dawladda ku jira ama shacab ha ahaadee sida fiican loo hadlayo looguna helayahay Soomaaliland inay mid noqoto oo la isu keeno oo ay dad walaala oo aan kala guurayn oo meel kala tagayn oo isku dada sida ay u soo dhaweeyeen iyadana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan doonaynaa waxa weeye waa waqti fiican inaynu ka faa'iideysano xukuumaddana waxaan ku boorinaynaa chance-ka in laga faa'iideysto oo wax la wixii suuragal ah halkaas loo ama saadiin ha noqoto ama ha noqoto xukuumad iyadoo loo dhigayo in la waajibo ayaan aad iyo aad u filanaa Ali Khaliif iyo ragga madaxda u yahayna wada hadalka ogolaadayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waa soo dhawaad dalku waa dalkiinii cidina inta kamale mid maanta iyo mid hore u joogay waa la isku wada mid annaga sii joognay ka soo jeedna beeshaasna sharaf iyo magac waxay noo tahay in dadka iyaga xabadii laga daayo dhulka lama tigi karo oo caruurta iyada iskuul la'aan bay u dhamaatay gobolladii kalena way ka hadhay waxaana keenay waxa weeye muranka labada maamulka Puntland iyo xukuumadda Soomaaliland kala sheegashada la kala sheeganayo dadka la lahaa meeshu nabad maaha aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana wax annagana deegaan ahaan faa'iido noo ah dadka iyaga iyo caruurta iyo jiilka dambana ay ka faa'iidayeen haddii wada hadalaasi meel la dhamaysto. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu siidkiisa faafintu sheegay inuu goostay inuu deegaamada bariga gogol nabadeed iyo wada hadal iyo wada xaajood uu ku dhameeyo wixii tabashay jirta saami qaybsigana dib loo eego kuraasta sare ee dawladda arrinta rajaynta leeg baad ka qabtaa gudoomiye in ay saan ku socoto afjarato waxa weeye madaxweynuhu ilaa maalinta kursiga fadhiistay waadageedo wulul baa ugu horeysay oo ka bilaabmay intaana way istaba joogay sharaf iyo magac buu ka sameeyey habeenna kama u seexan in uu ka tago xilka isagoo barigii Soomaaliland kale ay la midowday marka saama qaybsigu waa imanaya dee waa laga wada hadlayaa wixii macquul ah waa suurto waxa weeye madaxweynuhu diyaar iyo xukuumaddu diyaar waxay u tahay wixii suurto waa in saama qaybsigeena dib loogu noqdo dhibaatada jirtay waa saama qaybsigaas ugu sii badnaa iyo dad badan oo aaminsanaa midnimada Soomaaliya oo hadda taasina caqabada ugu weyn bay ahayd oo lahaa inagoo Soomaaliland
aynu la heshiino xamar tiina waa soo dhammaatay waxayna kalowsadeen waxa weeye in ama ha la heshiiyo ama ha la kala baxee iyo inagoo wada Somaliland wada ah inaynu dhinac isu wada raacno oo marka hore Somaliland la madeeyo. علي خليفة هذا وحول شيء إنه مدة دير وسمعنا لك مقالة سياسيين وسوق كم دي هاي حاجة خصوصا إذا كتيجان كسبة عقبات كوين سياسيين تتيجان كسر شيء الدولة نسمعنا لك كتيسن مع تابو تدونا إما كان مدخل سمعنا لأن أسرة صاد كم تحي حد وسوق شيء دين السامة عشان نوع عسى قوان سياسيين تو على خليفة كم دي هاي سمعنا وحوي سياسيين السومالي سياسيين كسر شيء تو بريء البعض حكي سجوكته أنت وحيل هاي واحد سومالي صدع ما مشرته وحاول يسكوها مبدأ من نمو يكون استاك السومالي باليسكوها أنا كان واجب واحد وحوي شعب السومالي وحرمه أيام ربنا ما ديجان قرى وأنا سود ويرنا ديارنا وحنقولنا وحوي وحيان كل كيسن كرنا إلى كل كيسن هنا وشقينني هذا أنا كعمل فرن بأنا كسود ويرنا هدي على إيمان هدي عدي إيمان السا نوصل بيرسا وحن كسود ويرنا كعمل فرن لا فرن ما هو كرسي وفريستا وحلا الفائدة اللي يعني قفك وفريسنا وكعيا لكن واحد فائدة وحوي وحروتي تشين كيانا إن اللي فكروا إني دجال وعظبينا الوعظبية شعيب يوجد شركة سوماليا أي من كل استاذ سومالي بعدنا كتبنا مركانا وكلاس دي عقباتكم معها هدي الدنيا إيمانية ووبحنا وقلت رسولنا دي الهيرة ديوان قلت رجين تالك بس قبطاني كقبصان تصل قدامي وحد ستتكو باقي ديوان قلت هو قبسوه مساء وهذا وهذا الدولة هوسي وحوي صار بدن كده ويكتبصون هذا لو حنو رجينا أنتي إنك بدن وأنا الاستواء كده تذكر معنا ودي يسيه هي مشرته ولا هذا واحد بدن بيسي يرى سيف ضلين أيام مركا وحنو رجينا يا حوي ونتجنا شعب غير صول وحنو كبوا من يعني سود دياريان دورشة وحوي سابق قيبسي وحكستم وحبرية مع إذا مبرينا ما تشرب ضد ضربة ولانا مركا ذلك يدك وحنوك ويان أيام سابق قيبسي كدورنا مركا وحنا دورنا وديار كروبان نكى حكم رباء سبالة يديروا النقطة ويرو استيوان كليا تذكير الديوان كليا wagaag daawadeen intaas waxaan kusoo gabagabay doonaa barnaamijkii dhacdada maanta aynu ku eegaynay wareysaan la yeelnay gudoomiye ku-xigeenka gobolada golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waa Khadar Macalin Deeq oo idinla socodsiinaya kamaradii Boqor Axmed Cabdi iyo dhammaan bahda Soomaali News oo idinkaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.